daqiiqad baan siinaya waxaan ku horreysiinayaa musharaxa xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro maxaad qirsantay inay kaaga wanaagsan yihiin labada musharax ee kale ama adu aad ku fiican tahay iyagu kaaga fiican yihiin bal noo sharax daqiiqad kooban waxaan is leeyahay su-aasha haddaan ka jawaabo muuse wuxuu iga fiican yahay arrimaha ciidamada faysalna wuxuu iga fiican yahay arrimaha dhismaha anu waxaan kaga fiicanahay inkastay dafireen wax waliba taariikh bay leeyihiin iyo record waxaan kaga fiicanahay inaan waayo aragnimo dheer oo ku saabsan diblomasiga wasaaradda arrimaha dibadda waan ka soo shaqeeyey dabaddana waan ka shaqeeyey xiriir badan oo caalami ah network baan leeyahay waxaan qabaa inaan kaga wanaagsanay labadaba siyaasadda iyo macaamilka iyo xiriirka arrimaha dibadda waad mahadsantay maxaad qirsantay inay kaaga wanaagsan yihiin labada musharax ee kale maxaad se qirsantay inaad adigu kaga wanaagsan tahay musharaxa xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi horta faysal anigu waxaan arkaa inuuna wanaagsan oo dalkan aad iyo aad waxyaalo badan iyo marar badan arrimo adag meel mawqif wanaagsan oo nabadeed oo qarannimo istaagay faysal laba goor uu tartamay labadii goor midna muu guulaysan labadii goorba natiijadiina wuu aqbalay weliba waan ugu hor aqbalay ciddii ku murantay mar walba ama hawl dhex imanaysana xagga wanaagsan buu ka raaco horta dee taariikhda rasuulaysa warkaasu taagay ciro laba waxbuu igaga wanaagsan yahay horta wuu iga qosol badan yahay waa niman kasta iska faraxsan waa faraxadee waa wax ilaahayba ku siiyo waa talabaadee waa nin la soo shaqeeyey labadii madaxweyneba riyaale iyo siiraayaba oo ahaa guddoomiyaha baarlamaanka waa nin wanaagsan oo mar qura kamuu hor iman madaxda uu la soo shaqeeyey waad mahadsantay anigu waxaan kaga wanaagsan shacbigaa sheegi aad baad mahadsan anigu ismaanin maaye waktigaagu kaa dhamaaday waktigu kaa dhamaaday engineer tayfon cali waraabe maxaad kaga wanaagsan tahay maxay kaaga wanaagsan yihiin labada musharax ee kale maxaad qiraysaa wakti yaroo kooban baad haysataa daqiiqad cabdiraxmaan laba arrin buu igaga fiican yahay waa khiyaamada iyo danaysiga muusena wuxuu igaga fiican yahay istaraatiijka qabiilku aad u yaqaanaa lanna waana askari laakiin anigu waxaan kaga fiicanahay anigu waxaan ahay leader baan ahay cabdiraxmaan waxaan ka dhigay speakeroo guddoomiye baarlamaan baan ka dhigayoo wuxuu sameeyey shirguddoon saddex nin buu meeshii soo fadhiisiyo ilaa microfonkii lagu qabsaday aniga laakiin bridka hadda la doorto waa lagu qabsan ragaa waaweyn oo ku qabsan doono gudoomiya xukumi doona laakiin anaa idin xukumi doona insha allahu tacaala anuu leader I born as a leader waan ku dhashay ama intaa leema ku dhashay waana nasiib daro inuu macalinkiisa yidhaha waan ka ilbaxsan oo waan ka xariibsan macalinkiisa 12 sano wax bariyo waxba muu baran